السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي meeshaad naga daawanaysaan waa sheef baraaro maanta waxaan wadnaa bur iyo hilib si khatar ah u sameyno ujeedaa dhexdiisa si uu bannaan yahay inta uu ka kooban yahay idiin sheegaya halkaa hilib baa noo yaal maraq digaag saliid basal baar xawaaji orgaano rootiga shiidan iyo wax yar oo caano ah sidoo kale koob buraha noo yaalo marka hore waxaan sameyneynaa maqlahan dabka saaranaynaa hilibkan ku hormaraynaa iyo basasha inaan samaysano wax yar saliid ahaan ku darnay sidoo kale waxaan ku dareynaa hilibkayga waa ilaa rubac meelahaas waaye intaasaa marka hore si fiican iskugu bislayneynaa xawaajiyada isla markiiba ku dar siduu hilibka iyo xawaajiga isku dhex galo iyo maraq digaaga alaabtan caadi maaha kuley indhihiina unbaa idin macalina sidaan u sameyneyna caawa annaga kule cashaa ugu talagalnay kaan iska arag xawaajiyadiiba haddeertaan ku darsanay iyo maraq digaagii saasaan u walaaqanaynaa inta uu ka bislaanayo mar walbana waxaan ku leeyahay dabkaagu ha gaabnaado markuu dabkaagu gaaban yahay wax walba sidaa rabtid bay u dhacayaan amaba ay kuugu bislaanayaan alaabtan caadi ma ahan hilibkii waa ujeedaa kalaan kale noo noqda hilibki waa hilib shiidan basashii baan ku darnay already hadda waa ka daminay dabka waa ujeedaa alaabtii sambuuska umaleysaa alaabtan sambuus xataa ula baxa magaciisa saliid baan halkaa ku shubanay sidoo kale waxaan ku darnay maraq digaag hal qaado biyaha waa soo kululeysanay biyihii baan ku shubanay hadda steebka burka u gudbeynaa insha allah halkii kooba burka ahaa waan ku darnay walaaqa ka dul tegin burkaas ilaa uu ugaali noqdo inaad ka dul tegtid ma ahan si fiican walaaq burkaa markuu isqabsado oo aragtid wuu bisil yahay already saasaan usoo walaaqnay annaga maanta oo dhan aan kor taagneen alaabtan alag ma aha laakiin wax macaan baad cunaysaa oo aad u qurux badan waa ujeedaa wuu soo gursaday wuuna noo bisil yahay wax yar saliid aan ku dareynaa saliidda waxay kaa caawinaysaa burka inuu si fiican isku qabsado hadhowna ay kuu fududaatay inaa intaad fidisid dhexdiisa aad waxaa rabtid gashan karto sidoo kale burkaan ukun baa la gashtaa uusti baa la gashtaa iyo basal waa ujeedaa haddeertaan xogaa yar buu soo qabooba isagoo kulul ha isticmaalin bur baan ku darnay wax yar burka u isticmaal ilaa dee inta uu ku siinayo burkii caadiga sida caadiga u qasatay ama sabaayad ama fooliis ama busi aa ka rabtid ha ka dul tegin waa inaa ku celcelisaa waa ujeedaa annaga intaa in la qiyaas baan usoo goosanay gacantaada un ku fidi mar walbana bur mari sababtoo ah burku wuu bisil yahay wuuna jilicsan yahay gacantaada wuu ku harayaa laakiin waxaa samaysaa adiga bur gacanta marso mar walba waa ujeedaa hilibkii ayaan dhexda ka gelinay saas ayaan iskugu laabaynaa banooni baan ka dhigaynaa alaabtan caadi ma ahan cashaan ugu talagalnay qaday kuu noqon kartaa quraac bay kuu noqon kartaa kaale iska arag fidoogu wuu dheeraanayaa kulle haddaa idin tuso laba xabba idin tusay saas unbaad u fidinaysaa kulley waad fahanteen baan u malaynayaa asxaabtayda sharafta leh saas ugu soo gurgeysaha dhanna yuu ka banaanaaneen waa masti inaa qarisid haddii kale saliidda adiga difeto ku geysanaysaa waa inaa wada qarisaa waayo hilibka biyihiisa iyo qoyaankiisa saliidda kuleel hadduu taabto waa wax kale halkaa rootiga shiidnaa baa noo yaalo sidoo kale halkaas waxaa noo yaalo wax yar oo caano ah ukun waa ku samaysan kartaa adiga haddii aad rabtid laakiin ukunta waxay sababaysaa markaad saliidda gelisid inay dhaqso bislaato ma rabna annaga maadaama caanaha waxaan u marinay oo rootiga u gelinay waxaan rabnaa burku inuu si fiican usii bislaado horena usoo bislaysanay oo already saas xataa jenesku waa ku cunaan ma fahanti intay saa usoo sameeyaan marka hore waxaad soo gelinaysaa caanaha kadibna waxaad gelinaysaa rootiga shiidan kabacdi baan dubaynaa saliidayada xoogaa way noo kulushahay alaabtii waa ujeedaa dhoonita uu egyahay kaaliska arag dhexdiisa dhanna wuu bannaan tahay يعني ما عجين دن ما دريم دونتid ma fahanteen alaabtan wadadaas aan u maray hadda u martid waa hubaal waad ka heli doontaa wax qurux badan oo macaan waad kala kulmaysaa business haddaad tahay lacag badan baa ku imaanayso hadaa gurigaaga u samaysatidna wax aa hubtid ood gurigaaga ku samaysatid waxa uu ka kooban yahay aad ku qanacsan tahay baad cunaysaa mar labaad iyo mar koowaad ba aad baad u mahadsantihiin alaabtii saasaan kusoo wada dhammaynaynaa insha allah annaga salad sooskaa rabtaa u isticmaali kartaa annaga qaar dad basbaas u isticmaalan shidni qaar mayonnaise ketchup ay ku cuneen qofba wuxuu rabo ku cunaya sidiisana waad ku cuni kartaa haddaa u baahan tahay oo aadan wax soosas iyo waxaas iyo aadan u baahnayn asxaabta aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baa idinku mahad celinayaa 1000 jeer subscribe nala dhaafeen haddaad markii u horreyso adna aragtay ay tahay sidoo kale haddaad nala joogtay laagta noo saar saaxiibadeena usii sheer gareeya aad baadna u mahadsantihiin dadku waxay walaalo ku yihiin inay isgarab istaagaan dabcan laagta iyo intaa yar aad samaynaysid
wax weyn kuguma aha laakiin anigu waan ku faa'iidaya waxaana aaminsanaha wax xalaala inaa cunayo hadda waxaan soo sameysanay salad maksar aa la dhaha alaabtan saladkan wuu isku jirjiraa wuu diyaarsan yahay adiga haddaa haysta xataa saladka caadiga ah waxaa rabtaa ku isticmaali kartaa ani kaasaa ii yaalay kaas ayaan ku isticmaalayaa saasaa usoo saartay feeri saxankaas haddaa restauranti ka dalbatid lacag badanaa lagaa qaadaa laakiin gurigaaga hilib shiidan basal iyo saliid iyo burle waaye taasid intaasay ku eg tahay waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer mar labaad iyo mar koobaadba aad baad u mahadsantihiin insha allah saasaana inoo ballanay waxaasi wax ka macaani wax ka qurux badanna waa soo gelin doonaa bliis adinkana dhiirigelinta aan idinka arko aad baa u mahadsantihiin